بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكورسada lagu baranayo luqadda Hindiga casharkiisa lixaad. casharkan waxaad ku baran doontaan ereyada luqadda Hindiga. labada farna waa ay ku qoran tahay farta caadiga Laatiinka iyo farta Hindiga. casharkii oo aan bilownana waa kan. Ab, tum, tu waa saddex erey oo isku macno ah balse isku heerar maahan. Ab waxaad ku isticmaali kartaa qof aad xishmeynaysid oo aad ixtiraamaysid. Ab haddaan ku celiyo waxaad u isticmaali kartaa qof ka weyn amaba qof aad ixtiraamaysid. Tum qof dhigaaga ah ama facaaga ah ayaad ku isticmaali kartaa waana erey xoogo aan akhlaaqda ku fiicnayn. Tum adiga ayaa loola jeedaa. Tu waxaad ku isticmaali kartaa qof kaa yar oo kaa da-yar. Tu qof kaa da-yar ayaad ku isticmaali kartaa. waa la fahmay ayaan filayaa. Asha rajo. Asha micnaheedu waa rajo. Or iyo or micnaheedu waa iyo dhawaaqu fahma. Or iyo ha ayaa loola jeedaa. Han way qoran tahay. Han ha u aqrinin. dhawaaqu waa ha micnaheedu waa ha. Donon ayay u qoran tahay balse na'da ama enta laguma dhawaaqayo. Dono labadooda amaba both asaas camal ayaa loola jeedaa. Both English ahaan Soomaaligu waa labaduba. Dono labaduba. Banka marwaxad. Batar dhagax. Bacha nuune ama beebiga yar ilmaha yar. Bahasha luqad. Ger waa guri. Mees waa miis. Ma hooyo. Yaha halkan. Waha halkaasi. Larka wiil ama inanka. Larki gabar inanta. Safid cad midabka cad. Safid sirf keliya. Ham anaga. Adyabak macalin. Adyabika macalimad. Daga dun. Abhi hadeertaan ama hadda. Kaagas warqad ama joornaal. Kitaab book. Koon waa kuma ayaa laga wadaa. Koon waa cidma. Koon qush farxad. waxaa laga wadaa farxad. Ganda wasaqaysan. hasku dhihin ganda. Hindudu dhada anaga dhaadaan u isticmaalo iyagu da ayay u isticmaalaan. Ganda wasaqaysan. Keesa sidee.